marka macallimiinta fadliga uu leeyahay maanta meeshaan wax daqiiqadii qadar yar loo soo koobi karo ma aha marka macallimiintan waxaa leeyahay sharaf baa leedihiin ha isqiimo tirina oo ha fiirsanana naftirkiina ma aragtay macallinka naftirkiisa waxaa loo baahan yahay inuu shaqadiisa jecel yahay qof hadduusan shaqadiisa jecleen oo mar walba asaga naftirkiisa naftiisa isku qasbaayo leh oo kumeelgaar shaqo kale ka siiraas isleeyahay qofkaas wax horumaraha ma gaaraayo ardaygana ma gaarsiinayo laakiin macallinka waxaa laga rabaa inuu shaqadiisa jecel yahay oonu ku firfircoon yahay ciyaalkan waxbay u barayaa asagana naftirkiisana aakhare ilaahi subxaanahu watacaala ajri xasanaad ayuu wax ku helayaa marka waxaa loo baahan yahay idan macallinka inuu shaqadiisa jecel yahay oo ku firfircoon yahay oo uusan fiirsanin qadar yar oo mishaaraadkan la siinayo macallinku ka tanweeya mishaaraadkan $100 $200 $300 macallinku ka facweeya laakiin asaga hadduu is yareeyo hamigiisa yareeyo lacagtaas keliya isku soo koobo waxaa weeyaan qiimihiisa hoos usii dhacaya laakiin waxaa loo baahan yahay macallinka inuu himul caaliya yeeshto oo qiimo yeeshto oo maxaan ku yidhaha uusan fiirsanin waqtiga bisha soo socoto bisha way dhowdahay saacadda iyo taamkii waqtigiiusan fiirsan macallin saas hadduu yahay wax macallin qiimaha ilaahi subxaanahu watacaala agtiisa laguma yeelanayo dadkan mu sharfaya laakiin macallinka haddii uu ku faraxsan yahay shaqada uu qabanayo shaqada ambiyada haysaa المعلم وحول العلماء ورثة الأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم علماء وحي كم يهين وودد النبي أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه أي دب جهيا إما أن علماء كان ما عرفته وجاد ملاه وكذا وشيطان الباب كتاجيه وكوير داعي إلى محاك إلى الشياطين شيطان وكوع عيناته معهن معلك وكان خير وكوشيا معلك وكان ودد وناكسب فامرا معلك وكان أخلاقنا وكنا المعلمين وحاول جبريل عليه الصلاة والسلام جبريل عليه الصلاة والسلام مركي النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام وقال الحلا فورت الجوي ومحنكو إلى هذا يكسو ديس اقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وراها ما أنا بقارئ مي يقفر وح آخرية ولنتك زيجي ومحنكو إلى هذا اللحوجي لحنوجي 6 حجار مركي يرد علماء مركي مالها سيفسر وحيدها المعلم لو ما أنقله 6 حجار وح كبدا أرضي يمو قراعه حتى 6 jeer wax ka badan hadduu garaaco arday xaq ayuu ka galay waayo sababtoo ah nabi sallallahu alayhi wasallam calayh markii oo qabanayo jibriil qabanayo 3 jeer wax ka badan muusan digdigin oo muusan ligligin oo muusan xanuujin marka ardayga aniga maanta dhan waxaa jecelnahay inaan garaacno ilaa anaga oo maarad gacanta naga daalaysa marka macallimiintu waxaan sheegi lahaa ardayga 3 jeer ka badan haddii aad garaacdo ilaahi subxaanahu watacaala ayaa kula xisaabtamaya ardaygana raaligelin aweydiisin waayo macallin tahay wada wanaagsan ay dad amraysa macallinka waxaa loo baahay in la xasuusto 30 sano ka hor hadda ka hor qasiira idinku soo gabay hadda ka hor nin 30 jir ah ayuu macallinka wadada ku arkay wuxuu yiri macallin maxaan ku yiraahdaa wiliga waan ku xasuusan doonaa maxay ku xasuusataa maalin ma xasuusataa oo dugsiga la joogay iskuulka la joogay saacad la xaday markaasaa tiri derbigu si jeesto oo indhihiinu isku qabta derbiga gacanta saara markaas 10 qofood ayaan kulligeen gacanta ayaa maarag derbi wada saaran indhahaas ku qaban macallinkii uu baarbaaray saacadii anigu iga helay markaasuu yidhi macallin maadan i ceebeynin maxaa ku dhacay markaasuu yidhi anigu naftirkeyga markii oo idin baara indhahayga xerisaan idin arkin oo aan qofkaan ka hel aan u ogaanin marka macallin waxaa loo baahan yahay inuu wado wanaagsan carruurta baro معلق أخلاق وناكسن إنه عروض برادو باهية لكن معلق إنه صار نقول معلق ضد عيبية معلق أرضي عيبية أو أرضي تحفظ نقول عيبين كي قلدنا وكيف فرحون أسمينا هايك أنت أقوى فصل كاغا معلق تحفيز كاغا بيشد أدري السلام هو ناكسن جبريل عليه الصلاة والسلام إمام شافعي مركو ليه مركي ذكي تحفظ وحدي وش يكتب وحبا يمشيني وبرواي عيبيسي marka qofku markii dadka dhaxay wariyahay adaa tiraad maxaan ku yiraahdaa markii dadka dhan ay tafaxaan jirka ala gashay sidaan ay xal marka qof muxuu dareemayaa xasilooni deganaansho ama macallinka naftirkiisa ardayda meesha ku dhex jira walaayadu soo istaag way adaa tiraad macallin kaale marka macallinka ardayga ma ka sugaysa hay macallin hay inuu ku dhamaa sugaysa waa may ardayga naftirkiisa inuu ku calaamanayo adiga laakiin adaa tiraad macallin soo istaag adaa tiraad walaayadu adiga soo istaag وهي زوجتك قالت ترى يهديه ما عرفت وتصير وناقة أو شيء لكن الدولة معلم ما كحلو بهاي وضد السعد إنه النبي صلوات الله وسلام عليه نور شيء أخلاقه ونكسنه في أرض يقول برا من يرى خير عن كلمة قالوا يدرن كود
waxaad u malaysaa yani inay tahay yani akhlaaqda xun yani gabdhaha iyo wiilasha yani iskuulka isku fuulaan oo waxyaabo xun ku sameeyaan akhlaaqda xun ku sameeyaan waxyaabo xun ku sameeyaan laakiin annaga islaam haddaan nahay waxaa loo baahan inaan ka duwanaan akhlaaq wanaagsan inaan barno si wanaagsan ula hadlo waayo waddada nebiga salawatullahi wasallam maadii diin baro waa waajibay kugu tahay inaad baratid diinta inaad baratid waajibay kugu tahay laakiin muhiimadda hala saaro akhlaaqda wanaagsan waayo qof aan akhlaaq lahayn janno ma galaayo qof aan akhlaaq ahayn cilmi hata waxba uma taraayo cilmi aan akhlaaq lahaynna wax uu faa'iido u leeyahay malaha dadkeena hadda waxaa u malaysaa cilmigaa soo barta jaamacada ka soo baxay dhexdaa soo dhuugsanaya siduu u hadlaya qaabku u hadlaya waxaa u malaysaa qof jaahilka ama marka qaarna